dhegaystayaal caanuhu waxay qayb weyn ka yihiin dheefta lama huraanka u ah jiritaanka nafley fara badan oo aadanuhu uu ka mid yahay. waxaa laga helaa caanagareenka uunka inta naasleyda lagu wada magacaabo ee aan ukumayne wax nool dhala koritaankooda horena nuujiya. waa dureere midab cad leh oo uraadda oogadu u baahan tahay ay ku wada idishahay. sidaa daraaddeed muddo dheer ayaa keligood lagu noolaan karaa iyada oo aan cunno kale loo baahan. haddiise ay ummadaha kale uga mid yihiin cunnada la quuto ee jaadadka badan leh, caanuhu soomaalida wax weyn bay uga dhigan yihiin. wax cunto ka badan bay caanuhu u yihiin. waa u nolol, waa u barwaaqo iyo ladnaan, oo waa u hodantooyo. taas ayaana ugu wacan inay si baahsan lana dareemi karo ay ugu xusnaadaan maansada, maahmaahda, sheeko xariirada iyo dhammaan qaybaha uu dhaqanka soomaalidu ka kooban yahay. milgadii bulshada soomaaliyeed ay caanuhu u lahaayeen darteed, helidooda iyo haysadkooda ayay isugu ducayn jireen, waayistoodana waa isku habaari jireen. si qoto dheer marka ay qof u habaarayaan, ereyadii ay ku aweytiyi jireen waxaa ugu daraa caana waa ama caano iyo nabadba waa. dhinaca kale, ducada ah caana hawaayin waxay iyana ahayd oraah qofkii haruub caana ah loo dhiibaa uu ugu ducayn jiray kii u dhiibay. reerka cusub ee markaa udubkiisa la taagana waxay isna ugu ducayn jireen wiil iyo caano, labadaasoo xoog iyo hodantooyo soomaalidii hore uga dhignaa. allah u naxariistay dablad sagaare ee rimaansayahan la oran jiray ayaa beri tix gabaya ku ducaystay. markaas buu ku taxay dhowr arrimood oo uu jeclaan lahaa in eebbaweyne ku gallado, sida meelo ka mida degaanka ximanood inuu ku cimri dheeraado, aakhire haddii la tago in cadaabta laga koriyo, inta uu nool yahay inaanu caano waayin iyo arrimo kale. wuxuu yidhi, allow yaa cadaadiyo gidhays ku cimri dheeraada, yaa ceelka daco laydaga iyo kax iyo beer caafi, allow yaa ciraygu habsataye tima cad ii dhaafsha, oo gabadh cadrada ii dhisoo aan iga coogcoogin, allow yaa cadaabkii aan tegin caanana aan waayin buuri. waxaa la yidhaahdaa dadka in waliba waxay dhab u taqaan wixii ay ku dhaqanto, gaar ahaan markii ay waxaasi nolosheeda lagaba maarmaan u yihiin. tusaale ahaan, ummadaha warshadaha leh ee galbeedka u badani waxay aad u yaqaaniin qalabka ay farsameeyaan, sida baabuurta iyo dayuuradaha. farsamo yaqaanada qaarkood sida laga sheegayna, baabuur waliba wuxuu ka kooban yahay qalab aan kun walxaad ka yarayn, oo mid waliba shirkadaha soo saara uu magac gaara u leeyahay. dhinaca kale, waxay soomaaliduna dhab u baratay dabeecadaha afarta adduunyo ee nolosheedu ay jeer ku wada tiirsanayd. waxay aad u taqiin daaq ahaan berrimada u wanaagsan, kuwa u xun, cudurrada meesi walba ku dhaca, iyo mid walba sida loogala tacaali karo. waxay yaqiineen ooga ahaan neef waliba xubnaha uu ka kooban yahay. waxay barteen laf iyo lud, sar iyo so, kan iyo kelli, beer iyo beeryaro, xidid iyo xiidan, leg iyo labac, tiro dhowr boqol oo xubnood aan ka yarayn, oo markii la qalo hasha ama ratiga neefka geela ah loogu tegi karo. meel kasta ha la joogo, xilli walbase ha lagu jiree, sababaha xoolaha loo dhaqdo waxaa ugu weyn hilibkooda iyo caanahooda, labadaas oo muddo qarniyo ah soomaalida u ahaa cuntada qura ee haddaan la waayin ay cid waliba ugu jeclayd, helitaankoodana ay ku dadaali jirtay. hilibkuse marmar buu ahaaye waxay maalin noolba quudan jireen caanaha ayay ahaayeen. haddiiba ay dhiiraha ugu jiraan yar iyo weynba, iyaga ayaa waaberigii lagu hamuun tiran jiray. iyaga ayaa harimada duhurkii caloosha lagu aamusin jiray.
iyaga ayaa cawaysinkiina lagu xeraadan jiray ama sida hadda la yidhaahdo lagu cashayn jiray. waxaa la yidhi oday soomaaliyeed oo abwaan ahaa ayaa inta beri la su'aalay waxaa lagu yidhi, hebelow in badan baad soo joogtaye wax inta jidiinka mara calooshaada gala maxaa kuula wanaagsan. markaas buu ku tiraabay jawaab aanu meel fog ka doorin oo ahayd, cad caana dabaashay ma ku daraysaa? oo uu ula jeeday hilib inta la cunay caana laga dabageeyey ma wax la mid ah baa jira. geela markii la dhaco ee soo dhicintiisa ay isku guubaabinayaan caanihiisa ayay isxusuusin jireen. sidaas buu gabyaagu dhallinyarada ku abaabuli jiray. sidaas baa colka baxayana lagu dagaalgelin jiray. waxay qabeen in loo dhinto inay caanuhu mudan yihiin, wax la garab dhigi karaana aysan jirin. abu muuse ismaaciil samatar oo maanseyahanadii qarnigii 19 ka mid ahaa ayaa beri wuxuu aad isugu howlay geel reerahooda laga qaaday sidii loo soo dhicin lahaa. wuxuu wax guubaabiyo iyo madar lagu dhanyahay wuxuu ka dabeebtaba gadaalkii ayuu dareemay raggii uu filayay inay dhawaaqiisa u dhegtaagi doonaan oo aan damba ka lahayn. markaas buu tiriyey darbadaalay gabaygiisii la baxay, kaasoo qayb ka mid ah uu aad ugu canaantay nimankii geelaas lahaa siday soo dhicintiisa uga seexdeen ee uu dhiiggu ugu dhaqaaqi waaye. wuxuu ku cambaareeyey inay magaalo galeen, inay ganacsi door bideen iyo falashada beeraha inay wax moodeen. wuxuu aad uga calaacalay maanka raggaa sida looga maqnaysiiyey doobigii caanood ee duhurkii ay xaabsan jireen inuu ka wacan yahay kibis iyo guud ahaanba soorta magaalooyinka laga cuno. fiqibahdii kama janno tago waa tii ay ku mahmaahi jireen. abu muuse oo sheekh ahaa waxaa gabaygiisii ka mid ahaa, idinka isku duulane cid kale dayiba maysaane, haddaa duulba duulka han u guran dab iyo baaruude, koo kale dantiiya kiina dega deexda bariyaysa, dayn iyo dukaan baad gashiyo damac magaalaadii dadaalkaagu wuxuu saaran yahay diiro saraciiye, candadiiranley duul nin lihi cid uma daayeene, dubbiya xiito niman loo lisayn duni ku leeleeliye, diihaalku geel inuu ku bo'o idinka diimoone, duhurkii haruubkii ahaa kibiska dooroone. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ah inoo joogo. waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.